gabadhan waxay tiri haddaan 1 milyan gaaro bisha Ramadaan ka hor waan soomaya waan tukanaya rabbigii adiga ku abuuray cibaadadiisa waxa la leeyahay haddaan 1 milyan gaarsiisiin waan soomaya waa cibaadaysanaya haddii kale ilaahay macaabuday markaas dadka taageerayaan aaway dareenkaagii miyaadan jeclayn Allah miyaadan qadarinin Allah miyaadan qiimeynin Allah alxamdulillah wahdahu wasalaatu wasalaamu calaa man laa nabiyya bacdah adiga hadda idaawanayo rag iyo dumar qofka aad doontid ahaaw haddaad muslim tahay waxaad tahay qof aan walaalanahay ilaahay dadkii baana kuu jeclahay wax kale kaa codsan maayo haddaan islaamnimada iyo iimaanka iyo tawxiidka iyo caqiidada aan walaalo ku nahay fiidiyowgan sheergareey 1 milyan oo sheergareen gaarsii laakiin waxaan kaa codsanayaa adiga hadda idaawanayo haddaan walaalo nahay oo ilaahayna walaaleeyey oo rasuulka ina walaaleeyey oo diinta ina walaalaysay fiidiyowgan sheergareentiisa gaarsiiya 1 milyan laba fariin baan wadaa fariinta koowaad gabadha beejkan iskale baan u diraya fariintan haddii ku soo gaarto gabarey Allah ku khalqay ku abuuray ku oofsan doono aad la kulmi doonto dartiis waanada iyo wacdiga ku dhex jiro u qaado addoon baa tahay waxa ku abuurtay Allah waxa ku leh Allah saad u khalqan tahay waxa ku khalqay Allah maanta waad nooshahay noloshaada waxa yacni ku ogolaaday inaad noolaato Allah maalin maalmaha ka midna waad dhiman doontaa boqolaal qof oo aad taqiinid oo aad taqaanid oo aad aqoon u leedahay dal iyo dibad joogo dhintay aad maqashay baa jira adiguna waad dhimanaysaa dembi walboo la galo xumaan walboo la galo macsi walboo la galaa Allah haddii loo soo laabto waa cafiyaa waana ku farxaa ilaahay u toobadkeen ilaahay u soo laabo waa maxay haddii 1 milyan lay gaarsiiyo waan soomaya waan tukanayaa haddii kale sideedaan ahaanaya arrin kuu bannaan ma aha addoon baa tahay ikhtiyaar ma lihid maanta saa dunta u hadlaysaa dad badan baad ka hor hadlaysaa laakiin habeen baa dhici doonto qabri aad ku jirto adigoo miskiin ah karfan ku duuduuban aadan tallaabo qaadi karin afkaagana aysan kelmad ka soo bixi doonin ilaahay ka xishow ilaahay baan kugu dhaariyey Allah baan kugu dhaariyey Allah baan kugu dhaariyey xumaantii munkarkaad wada jooji ilaahay u toobadkeen ilaahigii ku khalqay baan kugu dhaariyey ilaahay u toobadkeen fariinta labaad qof kastoo beejkan ku xiran war ilaahay maad ku raaligelisaan inaad falowga kala laabataan gabadhan Allah maad ku raaligelisaan inaad falowga kala laabataan war intaan qof ee ku xiran yaa ee falow siisay ee laag siisay muslimiin ma aha miya ummadda nabi maxamed ma aha miya dad ilaahay qadarinaya ma aha miya ilaahay baa idinku dhaariyey inta qofoodu gabadhan ku xiran ilaahu markhaati ka ahaw aniga dadka waxaan wax ku weydiistaa walaaltinimada inaga dhexayso qabiil waxba kuma weydiisto midib iyo waddanna waxba kuma weydiisto muslim meel walba uu joogo rag walba iyo dumar walba waa aniga walaalahay waanu ku faanaa walaaltinimadaas uu ilaahayna siiyaan wax oga codsadaa adiga idaawanaya haddaan walaalo nahay islaamnimada tawxiidkan walaalo ku nahay waa fiidiyowgii labaad wey sheergaray 1 milyan baa rabaa sheergareen keliya in waanada iyo wacdiga aan jeediyo walaalahana ugu talagay inuu gaaraa gabadhan waxay tiri haddaan 1 milyan gaaro bisha Ramadaan ka hor waan soomaya waan tukanaya rabbigii adiga ku abuuray cibaadadiisa waxa la leeyahay haddaan 1 milyan gaarsiisiin waan soomaya waa cibaadaysanaya haddii kale ilaahay macaabuday markaas dadka taageerayaan aaway dareenkaagii miyaadan jeclayn Allah miyaadan qadarinin Allah miyaadan qiimeynin Allah gabar xumaan munkaraad macaasi fiski soo bandhigayso hadalla xunxun ku adlaysaneen leef soo gashaa sidee baad falow ugu tahay aaway dareenkaagii aaway dadnimadaadii aaway diintaadii aaway caqiidadaadii waxaa nebigaaga ah nebi markuu xoogaa yaroo xumaan dareema hadalla xun wejigiisa laga garan jirin inuu arrinka ka xun yahay
adigoo nebigaaga maxamed yahay oo xishood badnaa xumaantana ka fogaan jiray inaad maanta gabar noocaan ah aad falow u ahaataa ood leeb u saartaa oo leeb u saartaa oo markay leeb soo gashaa aad intaasoo qoran u soo qortaa oo aad ku xirnaataa oo hadal walbay soo duubto aad garab taagnaataa wallaahi arrin wanaagsan ma aha arrin nebi maxamed sal lla alay wasalam ummaddiisa u qalmana ma aha gabar fisqi wado wallaahi uma wallaahi haddii gabadhaan dadka dhan ay ka fogaan lahaayeen 10,000 markuu kun gaaraa leeb buu soo geli karaa wax ku xiran haddii la waayo say leeb ku soo gelaysaa haddii wax loob u saaro wax falow oo wax kumint u saaro hadday waysaa way ka fogaanaysaa walaalayaalow ilaahay baa idinku dhaari ilaahu markhaati ka ahaw ilaahu markhaati ka ahaw ilaahu markhaati ka ahaw ilaahu adigaa u jeedo meel walbay adduunka ka joogaan intu qofoodoo gabadhan ku xiran adiguna rabbi baad noo tahay bay ku leeyihin way ku baryayaan way cibaadaysanayaan gabadha noocaasana munkaraadkii macsida wadana ilaahu falow bay u yihin loof bay u saarayaan hadday gabadhan ilaahay usoo laabataa toobad keentaa xumaha ka dhex baxdaa anaa kowkaa qofka falow u saarayo laakiin intay munkar ku jirtaa ilaahay haddaad qiimaynaysaan ka fogaado haddaad allah iyo rasuul qiimaynaysaan iyo diinta ka fogaado